xubno ka mid ah dalladda naafada qaranka Somaliland iyo kooxda ciidamada booliska ee loo yaqaan Bamboyda ayaa waxa ay socod dheer ay ka soo bilaabeen wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland ilaa iyo laga gaadhayay hotel Guleed oo lagu qabtay munaasabadaasi. munaasabadani lagu xusayay maalinta loo asteeyay naafada caalamka waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland. Marwan Nuure Maxamed Magan gudoomiye ku-xigeenka ururka naafada Somaliland oo furitaankii munaasabadaasi ka hadashay ayaa waxay ugu bishaaraysay naafada caalamka gaar ahaan naafada Somaliland in xuska maalintooda loo qorsheeyay ay ku soo dhaweeyaan farxad iyo reereyn. ahaantii waxaan si gaara iyo si guud ahaaneedba ugu mahad celinayaa xukuumadda talada haysa oo maxay ahayd markii ugu horeysay sanadkii hore madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland baa inagala soo qayb galay waa markii ugu horeysay ee madaxweyne uu xaflad naafa yimaado madaxweynayaashii Somaliland maantana madaxweyne ku-xigeenkii iyo wasiirro tiro badan ay inala joogaan waxaan u mahad celinayaa oo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada jamhuuriyadda Somaliland oo ay naafadu si toos ah u hoos timaado laakiin bulshada inteedii badnayd ayaa waxay ka aaminsan tahay in aanay xaqa ay iyagu leeyihiin qofka naafadihi aanu lahayn in uu ka hooseeyo qofka naafada ahi laakiin fikirka naafadu qabtaa waxa weeye cidna inaanaan ka hooseyn inaanu ka sarreyno mooyaane taasina waa maan baray iyo maan bilaal naafadu halkii ay shalay ta taagnayd maanta ma taagna halkay maanta taagantayna insha Allah tacaala bari taagnaan mayso. Marwa Shukri Xariir Ismaaciil wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland oo yana kulankaasi ka hadashay ayaa waxa ay ka warantay doorka ay xukuumadda Somaliland ay siisay hawlaha naafada qaranka iyo waliba sida ay u dhinac taagan tahay horumarintooda. naafada reer Somaliland waxay la mid tahay naafada adduunka ee kale waxaanay la qaybsanaysaa farxadda iyo fantasiyaha ay u sameynayaan maalintan iyadoo loo doonayo in la xusuusto xuquuqda asaasiga ah ee ay ku leeyihiin caalamka guudkiisa. waxa sharaf iyo qadarin haddaba inoo ah maanta xukuumadda ay caynaanka u hayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo madaxweyne ku-xigeenku in ay ka go'an tahay in kor loo qaado dhammaan xuquuqda aadamaha in la dhowro oo tanaafadu ay ugu horeyso waxaynu ka mid nahay dadka ugu horeeya dhinaca xuquuqda aadamaha marka la eego safka hore ayaynu kaga jirnaa iyadoo dalkeenu u curdi yahay dawladda maantana way ka go'an tahay. madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo gabagabadii munaasabadaasi hadal ka jeediyay ayaa waxa uu ku bogaadiyay naafada Somaliland xuska loo sameeyay maalintooda caalamiga ah waxana uu sheegay in Somaliland beesha caalamka ay kala qayb qaadanayso ilaalinta xuquuqda naafada iyo waliba horumarintooda. marka hore ilaahay waan hambalyeeynaa ilaahay waxa idinka rajaynayaa sanadkiisa in bashbash iyo barwaaqo inuu gaarsiiyo kii xanuun qaba ilaahay inuu caafiyo yaan idin rajaynayaa hambalyeeya marka hore ilaahay ka dawlad ahaan waxaan la barbar joognaa waxa wixii itaalkeena inuu la garbar joogno oo maartay kor la idin qaado oo wixii la qaban karo haday agab tahay iyo haday tahay maartay tacliinta tahay iyo haday tahay maartay qalab tahay waan la barbar joognaa. waxaana madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo munaasabadaasi lagu xusayay maalinta naafada caalamka uu ka sheegay in xukuumadda Somaliland ay u qorshaysay naafada in laga shaqaaleysiiyo xarumaha dawladda Somaliland isagoo sheegay in qalab kala duwan uu u iman doono sanadkan cusub haddii Allah awood u ogolaado. maantana waxay idin maqaro sanadka horaantiisa bisha January ni imanaysa qalab agabkii naafada oo kii ka hore ka badan oo gobolada dhan la gaarsiin doono insha Allah. taa xagga shaqaaleynta saayni sheegtay gudoomiyuhu intii horeysay sanadkan waxa lagu deeqay 40 qof oo maartay in lagu dhex daro shaqaaleynta sanadka cusub ee 2015. waxa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah naafada qaranka Somaliland iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Somaliland waxaana dhammaantoodba ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen maalintan caalamiga ah ee naafada caalamka.